xukuumaddu waxay xoogga saartay tayeynta adeegyada waxbarashada, horumarinta kaabayaasha waxbarashada, dhiirigelinta macallimiinta iyo xoojinta ka qaybgalka bulshada si loo xaqiijiyo in carruurta deegaanku helaan waxbarasho tayo leh oo loo siman yahay. waxaa kor loo qaaday ka qaybgalka bulshada iyadoo la aruuriyay hanti dhan 514 milyan oo bir, taasoo isugu jirta lacag caddaana iyo qalab iyo tabarucaad shaqo. taageeradan bulshada ayaa loo adeegsaday horumarinta adeegyada waxbarashada, waxaana lagu dhisay, laguna dayactiray, lagu ballaariyay adeegyo kalena loogu sameeyey 252 dugsi, taasoo si muuqata u wanaajisay waxbarashada kumanaan arday. sidaas la mid ah xukuumaddu waxay markii ugu horreysay hirgelisay 2 xarumood oo lagu talagalay carruurta qaba autismka, kuwaas oo ay ka faa'iideysteen 100 arday, taasoo muujinaysa sida ay xukuumadda uga go'an tahay in fursad waxbarasho la siiyo dhammaan carruurta baahiyaha gaarka qaba. si loo daboolo baahiyaha macallimiinta korna loogu qaado tayada waxbarashada, waxaa la shaqaaleysiiyey lana meeleeyey 507 bare oo cusub, kuwaasoo ka kooban 150 bare oo diblooma ah iyo 357 bare oo digrii ah. waxaa 1869 macallin loo hirgeliyey nidaamka qaab dhismeedka horumarka shaqada, taasoo kor u qaaday mushaharkooda iyo fursadahooda horumarineed. dhinaca manhajka waxaa si habsami leh loo qaybiyey dhammaan 11 gobol iyo 6 maamul magaalo buugaag manhaj oo tiradoodu dhan tahay 376,655 buug. waxaa sidoo kale xafiiska soo gaaray manhajka dugsiyada hoose KG ilaa 6 oo dhan 1.6 milyan oo buug lana qaybin doono dhowaan, taasoo wax badan ka qabanaysa saamiga ardayda iyo buugga ee dugsiyada hoose. waxaa la dardargeliyey dhammaystirka mashaariicda iyadoo ay dhammaadeen 8 mashruuc oo ay 4 ka mid ah ahaayeen dugsiyada hoyga. dhanka kale, si waxbarashada hoos looga soo dhiso, waxaa degmooyinka deegaanka laga bilaabay dhismaha 95 dugsiyada barbaarinta ama KGska, iyadoo laga duulayo kor u qaadidda natiijada ardayda ayaa waxaa kabis loo sameeyey ardayda qaadanaysa imtixaanka shahaadiga oo dhan 16,430. waxaad ogtihiin in labadii sano u dambeysay galaaska 7aad iyo 8aad ardaydu ay wax ku bartaan af Ingiriis, sanadkanna in galaaska 5aad iyo 6aad lagu daro si galaaska 5aad laga bilaabo ay ardaydu wax ugu barato af Ingiriis, maadaama imtixaanka 12aadka ay ku qaadanayaan af Ingiriis, iyadoo la ogaaday in dhibaatada ugu badan ee dhicitaanku ay tahay mid la xidhiidha fahamka luqadda. dhanka caafimaadka waxaa la dardargeliyey dhismayaasha caafimaadka iyadoo 15 mashruuc ay dhammaadeen oo ay ka mid yihiin mashruuca dhismaha isbitaalka ciidanka booliska, xarunta dhismaha caafimaadka Yeed, dhismaha xarunta caafimaadka Galuun, dhismaha xarunta caafimaadka Rabaso, dhismaha xarunta caafimaadka Shabeelley, qolalka qalliinka ama OR-ka ee xarunta Danood iyo Daroor, rugta caafimaadka jiilka sare ee Bukuraale. sidoo kale waxaa markii ugu horreysay deegaanka laga hirgeliyey xarunta daryeelka Fistula, waa isku furanka haweenka ku dhaca gaar ahaan xilliyada dhalmada ee Kaaramarda General Hospital, kadib markii la tababaray umulisooyin iyo xirfadlayaal caafimaad, taasoo soo afjartay safaradii dheeraa iyo kharashaadkii ay haweenku ugu bixi jireen adeegan. si loo xoojiyo tayada adeegyada caafimaadka, waxaa la shaqaaleysiiyey xirfadlayaal dhan 1932. waxaa takhasusyo kala duwan loo diray 32 dhakhtar, halka 164 arday laga taageeray barashada cilmiga dhakhtarnimada si loo xoojiyo tayada iyo tirada xirfadlayaasha caafimaadka ee deegaanka. waxaa dhammaan degmooyinka iyo maamul magaalooyinka laga hirgeliyey caymiska caafimaadka si uu wax badan uga taro u sinaanta adeegga iyo tayeynta adeeg bixinta. si bulshada danyarta loo taageero, waxaa qalliin indhaha ah oo bilaasha loo sameeyey 2,170 muwaadin, halka 167,000 oo carruur ah oo da'doodu ka yar tahay 1 sano ay dhammaystirteen tallaalada muhiimka ah, taasoo door weyn ka qaadatay xoojinta caafimaadka bulshada iyo ka hortagga cudurrada. si loo tayeeyo adeegyada caafimaadka, waxaa la qalabeeyey 106 xarumood oo caafimaad oo ay ku jiraan 22 cusbitaal, 23 xarumood oo leh qolal qalliin, 40 rugo caafimaad iyo 21 xarumo caafimaad, iyadoo qalabeyntani ku kacday 1.13 bilyan oo bir. xarumaha caafimaadka ee adeegga qalliinka lagu fuliyey ayaa la gaarsiiyey 27, kuwaasoo adeeg siiyey 288 hooyo. waxaa kale oo 65 xarumood lagu rakibay nidaamka tamarta cadceedda ama solar si loo joogteeyo adeegyada caafimaadka. si la isugu xidho xarumaha caafimaadka loogana jawaabo xaaladaha degdegga, waxaa la qaybiyey 21 gaari oo ambulans. sidoo kale waxaa la ururiyey 52,000 qandi oo dhiiga oo u dhiganta 89% qorshihii sanadlaha ahaa, waxaana la qaybiyey 51,000 oo qandi,
taasoo door weyn ka qaadatay badbaadinta nolosha shacabka si guud heer daboolka caafimaadku waxaa la gaarsiiyey 68%. adeegyada kala duwan waxay dawladdu ku dadaashay tayeynta adeeg bixinta iyadoo la dhaqan geliyay xirmooyinka maamulka suuban iyo barnaamijka dib u habaynta adeeg bixinta hay'adaha dawladda ama reformka si adeegyada dawladda loogu soo dhaweeyo bulshada waxaa la daahfuray xarunta adeegyada hal goob Soomaali Masoob oo si rasmi ah u bilowday adeeg bixinta iyadoo isla markaana ay socdaan dhismayaasha xarumo kale oo gaaraya ilaa 12 si bulshada qaybaheeda kala duwan adeegyada loo gaarsiiyo waxaa dadka baahiyaha gaarka ah qaba loo qaybiyay ama la gaarsiiyay 3914 qof adeegyo muhiim ah oo ay ka mid yihiin daaweynta jimicsiga samaynta lugaha macmalka iyo dayactirka qalabka ay isticmaalaan si loo xaqiijiyo kor u qaadida nolosha bulshada nugul ee danyarta waxay xukuumaddu taageero lacageed oo dhan 202 milyan oo bir gaarsiisay bulsho danyara oo gaaraysa 159,000 oo qof taasoo wax weyn ka bedeshay noloshooda danyarta waxaa sidoo kale bisha soonka lagu guuleystay barnaamijka afur walaalka iyadoo 300,000 oo qof oo danyar ah la gaarsiiyey taageero kala duwan oo ay ku baxday lacag dhan 348 milyan oo bir waxaa xisaabinayna waa inta dawladda ee maamulada gobolada iyo degmooyinka iyo heer deegaana ma aha inta shacabku iskii iska abaabulayo sanad miisaaniyadkan 2018 taariikhda Itoobiya xukuumaddu waxay xooga saartay dhisidda garaadka iyo kartida dhalinyarada iyadoo la qabtay barnaamijyo wacyigelina oo lagaga hortegayo maandooriyaha iyo tahriibka waxaa lagu guuleystay in dhalinyaro ka badan 722,000 ay ka qayb qaateen adeega tabarucaadka shaqooyinka bilaha xagaaga oo isugu jira dhirbeeris iyo shubid caawinta danyarta wacyigelin iyadoo lagu qiyaasay tabaruca shaqo u dhiganta lacag 40.8 milyan oo bir ah isla markaana ay ka faa'iideysteen bulsho dhan 3.6 milyan oo qof waxaa la qabtay tartanka 13aad ee kubadda cagta ee gobolada iyo maamul magaalooyinka si loo dirigeliyo caafimaadka hibada iyo wadajirka dhalinyarada laguna abaalmariyay kooxihii ku guuleystay koobab iyo bilado waxaa kaloo ciyaaraha orodada kala duwan oo in ka badan 5 jeer lagu qabtay deegaanka waxaana ka qayb galay dhalinyaro gaaraysa ilaa 5,000 sidoo kale xukuumaddu waxay sii xoojisay ka qaybgalka haweenka ee horumarka iyo dhaqaalaha iyadoo 60,000 oo haweena la siiyay wacyigelin ku saabsan ka qaybgalka dhaqaalaha financial inclusion halka 350 haweena oo ay 306 ka mid yihiin iskaashatooyin loo gudbiyay bangiyada si ay u helaan deyn aan ribo lahayn shaqa abuurka guud ee deegaanka laga sameeyay oo ahaa in ka badan 174,000 oo shakhsi haweenku waxay ka yihiin 45% taasoo macnaheedu tahay ahmiyadda haweenka la siiyay inay soo roonaanayso sidoo kale waxaa la xoojiyay lana casriyeeyay si digital ah nidaamka maareynta kiisaska haweenka iyo caruurta one stop centers iyadoo uu maareeyay 1486 kiis oo kala duwanaa oo isugu jiray kufsi isku day kufsi gudniinka fircooniga guurka degdega jirdil iyo khilaafaadka qoyska iyadoo dhibanayaasha la siiyay adeegyo sharci nafsi iyo mid bulshada xukuumaddu waxay mudnaan gaar ah siisay daryeelka caruurta nugul iyadoo agab waxbarasho la gaarsiiyay in ka badan 20,000 oo caruur ah halka 420 kale la siiyay taageero waxbarasho si ay u sii wataan waxbarashadooda ugana mid noqdaan bulshada waxbaratay ee ka qayb qaadata horumarka deegaanka waxaa iyadana la soo ururiyay lana daryeelay 300 caruur oo ku noolaa wadooyinka inkasta oo jilaalku la soo maray bilowgii hore sanadka haddana waxaa xusid mudan dadaalada xukuumadda iyo iskaashiga bulshada oo suurtageliyay inaanay dhicin barakac khasaare naf iyo maal midaasi waxay ku timid hogaaminta heerarka kala duwan oo si weyn uga qayb qaatay ka jawaabidda jilaalka iyadoo muddo bil ah ku kala qornaa gobolada dhammaantood si midaas loo sii xoojiyo waxaa la aasaasay sanduuqa kaydka deegaanka si loo yareeyo ku tiirsanaanta gargaarka dibadda intii lagu jiray howlgalkaas taakulaynta shacabka waxaa la qaybiyey in ka badan 76,000 oo kintaal oo raashina oo isugu jiray qamadi boorosh galley bur bariis iyo baasto raashinkaas oo ka kala yimid heer federaal iyo qasnada deegaanka waxaana gargaarkaas la gaarsiiyey dad gaaraya 147,000 oo qoys taasoo si weyn uga qayb qaadatay badbaadinta nolosha iyo adkaysiga bulshada jilaalka adkaa ee deegaanka ka dhacay waxaa 53 degmo la gaarsiiyey calafka xoolaha oo gaaraya in ka badan 232,000 oo xidhmo iyo 22,000 oo kintaal oo calafka nafaqada badan si xoolaha nugul loo badbaadiyo waxa kale oo barbar socday biyo dhaamin socotay intii jilaalka oo dhan
xukuumaddu waxay dadaal weyn ku bixisay in bulshada deegaanka si hufan loogu gaarsiiyo waxqabadka dawladda iyadoo la adeegsanayo istaraatiijiyada casriga lana diyaariyo muuqaalo documentary ah oo si mugla uga hadlaya heerarka ay marayaan hirgelinta mashaariicda horumarineed iyo higsiga xisbiga. waxaa la adkeeyey dabagalka iyo ilaalinta anshaxa saxaafadda si loo dhiirigeliyo dhalinyarada hal-abuurka leh. waxaa la taageeray xirfadlayaasha ka howlgala warbaahinta kala duwan si ay uga faa'iidaystaan fursadaha shaqo abuurka iyo horumarinta xirfadahooda. mudanayaal iyo marweyn maryo afayeen marka shaqooyinka xukuumaddu qabatay ee aan soo jeediyey laga eego dhinaca mashaariicda sanad miisaaniyadka 2018 waxaa deegaanka ka socday 175 mashruuc kuwaas oo isugu jiray kuwa laga maalgeliyey khasnada dawladda oo 159 ahaa iyo barnaamijka SDG-ga ama horumarka waara oo 16 ahaa. talaabooyinkaas waxaa asaas u ahaa kow mashaariic soo jiitantay isla markaana leh ahmiyadda gaarka in muhiimad in la soo dhammaystiro. mashaariic ahmiyad gaar la siiyey iyadoo la eegayo baahida rasmiga ah ee loo qabo iyo baaxadda miisaaniyadda ku baxaysa sida isbitaalka ciidanka booliska oo kale hafardhaamiyo mashaariic waraab kuliyadda TVD-yada iyo dugsiyada sare iyo mashaariicyo hindisaha heer dal oo sanadka gudihiisa badankooda la bilaabay isla markaana la dhameystirayay. tusaale ahaan wadooyinka marinada magaalada Jijiga goobta dalxiiska ee Shabeelle iyo Masoob. guud ahaan mashaariicdaas ahmiyadda gaarka la siiyey waxay tiradoodu dhan tahay 90 mashruuc waxaana si buuxda u dhammaaday 66 mashruuc oo ka dhigan in la gaaray 73%. horumarinta kaabayaasha isgaarsiinta ayaa iyaduna ka mid ahayd meelaha mudnaanta la siiyey si loo xoojiyo isku xidhka bulshada adeegyada casriga ah iyo kobaca dhaqaalaha. wuxuu qorshuhu ahaa in la dhiso 100 anteeno isgaarsiina kuwaasoo 40 si buuxda loo dhammaystiray khadkiina loo sii daayey halka 59 kale ay ku jiraan sidii loo dhammaystiri lahaa. waxaa intaa dheer in adeega 4G oo internetka ah la gaarsiiyey 80 magaalo taasoo si weyn u xoojisay isku xidhka isgaarsiinta iyo helitaanka adeegyada digitalka ee bulshada. si loo adkeeyo isla xisaabtanka iyo ilaalinta xuquuqda macaamiisha xukuumaddu waxay qiimeyn ku samaysay bangiyada dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee ka howlgala deegaanka. intii lagu jiray qiimeyntaas waxaa la falanqeeyey waxqabadkooda lacagaha lagu kaydsaday iyo adeegyada ay bulshada u qabteen. bangiyada waxay ururiyeen lacag dhan 40.3 bilyan oo bir halka ay dib ugu maalgeliyeen bulshada 12.4 bilyan oo bir oo deyna taasoo si weyn u taageertay kobaca dhaqaalaha maalgelinta wax soo saarka iyo ganacsiga deegaanka. si guud waxay xukuumaddu qabatay shaqooyin aad u ballaaran iyadoo ay barbar socdeen barnaamijyo iyo howlo heer qaran ah oo muhiim u ahaa dalka sida doorashooyinkii iyo hirgelinta hindisayaasha xisbiga kuwaas oo laga gaaray guulo la taaban karo. iyadoo ay jireen duruufahaas waxaan ku faraxsanahay in deegaanka laga hirgeliyey mashaariic iyo barnaamijyo wax ku ool ah oo tusaale u noqon kara horumarka deegaanka. ugu dambayn waxaan ku faraxsanahay in kalfadhigani uu ku soo hagaagay sagootinta 5 sano oo nabad iyo horumar la taaban kara ah oo ay xukuumaddu ka hirgelisay magaalooyinkeena iyo miyiga iyadoo magaalooyinku sida caasimadda Jijiga xudun u noqdeen diblomaasiyadda saameynta iyo dhaqaalaha geeska Afrika. waxaan bogaadinayaa doorkii uu golaha lixaad ka soo qaatay nabaddaas iyo horumarka 5 sano ee la soo dhaafay. waxaan xubnaha golaha lixaad ee la sagootinaya uga mahadcelinayaa adeegii iyo matalaadii shacabka ee 5 sano ee la soo dhaafay. waxaan kala shaqayn doonaa xafiiska golaha shacabka maamuuskooda iyo sagootintooda. waxaana xubnaha dib loo soo doortay ugu ducaynayaa in Ilaahay xilka ku asturo. xubnaha hore la sagootiyana waxaa laga shaqayn doonaa si ay qayb uga sii ahaadaan inay u adeegaan shacabkooda muddooyinka soo socda insha Allah. hadii alla mahadsantii.